Saamaynta daadadkii ka dhashay roobabkii ka da'ay meelo ka mid ah Germany, Biljamka iyo dalka Holland ayaa weli cirka isku sii shareeraya, iyadoo roobabkaasi iyo daadadkii ka dhashayna dad lagu qiyaasay 200 ay ku geeriyoodeen. Dalka Holland, meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan gobolka Limburg waxaa ka socda barakicin dadka laga qaxinayo guryahooda si loo geeyo meelo ammaan ah. Magaalada Venlo, 10,000 oo qoys ayaa laga raray guryahooda si looga badbaadiyo webiga dhinac ka soo fatahay inuu dhibaato dadkaasi u geysto. Waxaa sidoo kale albaabada loo xiray isbitaalka Venlo oo ay ku jireen dad bukaanno ah. Roobabkii maalmahan da'ay ee dabaylaha sitay waxa ay sababeen in webigu uu dhinac ka dilaaco islamarkaana biyuhu ay ku soo fatahaan magaalada islamarkaana dadka ay guryaha ugu galaan. Waxaa la sheegay dalka Germany in ay ku geeriyoodeen 103 qofood iyadoo dad aad u fara badanna la la'yahay. Biljamka waxaa la sheegay in dhimashadu lagu qiyaasay 20 qofood halka la aaminsan yahay in ka badan 20 kalena in la la'yahay. 100,000 oo dadka Jarmalka ah ayaa la sheegay in uu saameyn xoog leh ku yeeshay roobabkii halkaasi ka da'ay, iyadoo ilaa iminkana uu khasaaro sii. Ninkan oo ka mid ah dadka deegaanka Limburg waxa uu sheegay in gurigiisu ay isku beddelay webi. Waxa uu sheegay wax walba oo gurigiisa yaalay in uu dhibaato iyo khasaaraba soo gaaray. Dadku ma garan karin waxa ay sameeyaan, waxaana ka baxda talo farahooda. Haweeneydan waxa ay sheegtay xitaa inay garan weyso waxa ay sameyso islamarkaana isku dayday in telefishinka kaliya ay ka badbaadsato oo meel kore ay saarto. Hase yeeshee waxay sheegtay intaasu aanay ka gaari karin waayo biyaha oo aad u badnaa darteed.